hadda waxaan ka bilaabeynaa qaybta koowaad musqusha gudaha. Waxay ku taalaa gudaha ayay ku taalaa sidan ayay u samaysan tahay. Qaybtaan waa qaybtii waji dhaqa ujeedaan. Sidoo kaleeto qaybtaan waxay leedahay kabinkaas oo meesha qoyska iyo daaqadaas fadhigeeda waa kana sida loo eegyahay. Tuneelka cad ayay leedahay. Waxaan ku xijinaynaa qolkan waa isagana qol jiif ah. Shumacaas la dhigay waayo madowga kaas kalarkaas guriga mutuneelkan ee wada yaalo. Sidoo kaleeto wuxuu leeyahay laba daaqadood ayuu leeyahay kuwa sariirihii jiifka daaqadaas iyo sidoo kaleeto daaqadaas labada daaqadood ayuu leeyahay. Qaybtan qaybtii armaajada iyadana sidoo kale waxaa ku taala qolkan oo leeyahay musqul gudaha ah. Qaybtan musqul gudaha ayuu leeyahay. Musqushana waa ka sidaas ay u samaysan tahay. Qaybtan waa qaybtii waji dhaqa. Sidoo kaleeto qaybtan waa qaybtii qoyska oo kabinka ayaa yaala. Sidoo kale daaqadaas ayay leedahay. Qolkan intaan ayuu ka kooban yahay. Sidoo kaleeto waa kaas korkiisa markaan idinku qabto isagana waxaan gelaynaa qolka labaad isagana qol jiif ah. Halkan waa qolkan jiifka waa isagana sidoo kaleeto isagana shumacaas madowga ayaa yaala laakiin mutuneelka waa isku wada mid. Isagana sidoo kale wuxuu leeyahay laba daaqadood. Daaqadaas iyo daaqada iyadana sidoo kale sariirta madaxeeda ku taalo qolka jiifka ah. Sidoo kale qaybtan armaajada waaye. Qolkan waa qol jiif sidoo kaleeto waxaan tegaynaa isagana qol saddexaad oo ah qol ka mid ah qolka jiifka. Markaan waa u jeedaan qaybtan waa is leedahay labadan qol isku meel ayay ku yaalaan. Tan waa musqushaan ka bilownay. Waxaan gelaynaa qolkan isagana ka mid ah qolka jiifka. Halkan isagana daaqadaas ayuu leeyahay. Sidoo kaleeto jiifkaas ayaa ku dhagan. Tan waa sariirtii. Hadda waxaan ka bilaabeynaa qaybta koowaad musqusha gudaha. Waxay ku taalaa gudaha ayay ku taalaa sidan ayay u samaysan tahay. Qaybtaan waa qaybtii waji dhaqa ujeedaan. Sidoo kaleeto qaybtaan waxay leedahay kabinkaas oo meesha qoyska iyo daaqadaas fadhigeeda waa kana sida loo eegyahay. Tuneelka cad ayay leedahay. Waxaan ku xijinaynaa qolkan waa isagana qol jiif ah. Shumacaas la dhigay waayo madowga kaas kalarkaas guriga mutuneelkan ee wada yaalo. Sidoo kaleeto wuxuu leeyahay laba daaqadood ayuu leeyahay kuwa sariirihii jiifka daaqadaas iyo sidoo kaleeto daaqadaas labada daaqadood ayuu leeyahay. Qaybtan qaybtii armaajada iyadana sidoo kale waxaa ku taala qolkan oo leeyahay musqul gudaha ah. Qaybtan musqul gudaha ayuu leeyahay. Musqushana waa ka sidaas ay u samaysan tahay. Qaybtan waa qaybtii waji dhaqa. Sidoo kaleeto qaybtan waa qaybtii qoyska oo kabinka ayaa yaala. Sidoo kale daaqadaas ayay leedahay. Qolkan intaan ayuu ka kooban yahay. Sidoo kaleeto waa kaas korkiisa markaan idinku qabto isagana waxaan gelaynaa qolka labaad isagana qol jiif ah. Halkan waa qolkan jiifka waa isagana sidoo kaleeto isagana shumacaas madowga ayaa yaala laakiin mutuneelka waa isku wada mid. Isagana sidoo kale wuxuu leeyahay laba daaqadood. Daaqadaas iyo daaqada iyadana sidoo kale sariirta madaxeeda ku taalo.
qolka jiifka ah. sidoo kale qaybtan armaajada waaye. qolkan waa qol jiif sidoo kaleeto waxaan tegaynaa sana qol saddexaad oo ah qol ka mid ah qolka jiifka. markaan waa u jeedaa qaybtan waa isleedahay labadan qol isku meel ay ku yaalaan. tan waa musqushaan ka bilownay, waxaan gelaynaa qolkan asagana ka mid ah qolka jiifka. halkan asagana daaqadaas ayuu leeyahay. sidoo kaleeto kan jiifkaas ayaa ku dhegan. tan waa sariirtii.